sidee u kala duwan yihiin nidaamka dimuqraadiga ah dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa laakiin dhab ahaan siyaasaddu ma waxa aan wanaagsanaynba ma waxa ay tahay in laga fogaadaaba dawladnimadeenu waa noocay marka si aan u garan karno sidee looga qayb galaa iyo doorkeebay dadka dhalinyarada ah ee ku leeyihiin waa inaynu fahmaan nidaamka horta siduu u dhisan yahay laakiin markaan ka hadlayno siyaasad waa noloshoo dhan waa go'aamada saameeya noloshaadoo dhan qof baarlamaan u sharaxan oo wakiil la joogaa ceelna kuu qodi maayo iskuulna kuma dhisi kara shaqadiisana maaha doorkeebay tahay haddaba dhalinyaradu ina qaadan karto ama sidee bay tahay inay uga qayb qaadato bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan intiina ka soo qayb gashay barnaamijkan caawa aynu ku wada sugannahay maktabadda gabiley aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa si gaara waxaan jeclahay bahda soo agaasintay hoggaanka maktabadda ugu horeeyo mustafa iyo tiimka la shaqaynayay inaan aad ugu mahadnaqo toos baynu isuga bilaabi doonaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii markii doorashooyinkii golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee saarna ay qabsoomayeen baa waxyaalahan xasuusta waxaa ka mid ah oo warbaahinta ku jiray mid iyo laba ma ahayne idinka laftiinuna laga yaaba in aragteen qof ka mid ahaa dadkii u sharaxnaa baarlamaanka oo marka meel deegaan oo miyiya oo lala yahay markuu socday way joogaa wuxuu ballan qaaday markaa oo ballanqaadkiisu ahaa haddii ay doortaan inuu ceelka biyaha ee deegaankaasi u baahnaa uu qodi doono iskuul dugsi sare ah oo aanay lahaynna uu u dhisi doono ya waa 4 sano ka hor marka waxaa laga yaabaa in badan naga mid inay dee dadka ka midi ayba ugu codeeyeen sababta kuwa kale oo badanina aanay inay mushkiladi ku jirto u arkeen arrinta mawduuceenu waa wacyi siyaasadeedka iyo ka qayb qaadashada siyaasadda ee dhalinyarada labada qodob buu dul taagan yahay marka waxaan jeclahay waynu sheekaysan doonaa aniga qodobada siday leeyihiin baan wax ka mid ah halkan idinkula wadaagi idinkuna doodaynu furan doonaayo waynu si furan baynu uga sheekaysan doonaa inaan kala qaadno bal horta wacyi siyaasadeed markaan ka hadlayno wacyiga ama ogaalka siyaasadeed muxuu yahay hadhowna markaas sidee bay dhalinyarada uga qayb qaadan kartaana aynu dul istaagno wacyiga siyaasadeedna labaynu usii kala qaadaynaa waxna waa wacyigii guud waxna waa siyaasadda lafteedii marka waxaan jecelahay bal inaan ku horeyno siyaasaddu waxay tahay siyaasadda inagoo keliya maahe meelo badan oo afrika iyo adduunkaba ka mid a siyaasad marka lasoo hadal qaado waxay xiriir la yeelataa ama qofka maskaxdiisa ku soo dhaca waxaan wanaagsanayn siyaasina qof aan inta badan wax fiican looga baran laakiin dhab ahaan siyaasaddu ma waxa aan wanaagsanaynba ma waxa ay tahay in laga fogaadaaba ma waxay tahay dadka wanaagsan siyaasadda inay galaan maaha aad baad u maqasheen sax baa qodobkaas siyaasaddu ma wax dheertii ahoo khariban oo aan la gelinba siyaasiguna ma wax xun oo sifo xun laba fahamka inaan saxno kow waa marka hore horta siyaasaddu haddaynu qooxid kooban samayno waa nolosha oo dhan wey maaha siyaasaddu qof meel haya oo sawir xun haya ama wax dan guuda ku takrifalay ama xil ummadeedoo dayacay laakiin markaan ka hadlayno siyaasad waa noloshoo dhan waa go'aamada saameeya noloshaadoo dhan hadday tahay waxbarasho hadday tahay waddo hadday tahay caafimaad hadday tahay ammaan yacni nolosha gebi ahaanteed go'aanada saameynaya meelaha lagu jaangooynayo iyo cidda jaangooynaysa weeye siyaasadda iyo siyaasigu marka maaha wax xun haddii aynu ka soo qaadno inay wax xun yihiin oo ah sidaynu in badan oo ka midii aynu u dhaqanno waata dhashay markaa nolosheenoo dhamm inay nolol adag oo shalay dhaantay un aynu ku jirno marka waa inaynu ogaano marka inaan siyaasaddu asalkeeda hore waxna waa
hadda siday u muuqato ama looga bartay ee dhaqan ahaan u abuuranmay waxna waa asalkeeda hore siyaasaddu waa nolosheenii oo dhan iyo go'aanada saameynaya nolosheenna sida looga qaybgalayo ee wax la isaga odhanaya wax looga tarayo taasi waa qodob yes dad badan oo ku fooganaa ama jooga meelihii go'aanada siyaasiga laga sameynayay ayaa waxay ka bixiyeen sawirka laga yaabo in badan oo inaga mida ama generationkeena ha noqoto ama kii ka horreeyay ha noqotee in sawir taban oo aan wanaagsanayn ay naga siiyeen siyaasadda oo ah qof marka uu joogo awoodda ku takrifala wixii shalay uu diidanaa maanta yeela waxaa danta guud ee loo dirtay oo ballan qaaday waxaan ahayn fala hanti iyo lacag ka samaysta hadhowna halkaa ka baxa dhacdooyinkaasi markay soo noqnoqdeen markaa waxay abuureen sawirkaa ah siyaasaddu waa waxunayn badan laakiin waa inaynu horta marka ugu horeysa aynu isla fahamno siyaasaddu ma xuma siyaasaddu waa nolosheenii hadday xumaatana nolosheenii iyo wixii saameynayay oo dhami way xumaadeen waa qodobka labaad intaynaan ka hadal markaa sidee looga qaybgalayaa siyaasadda ama sidee buu qofka dhallinyarada ahi door intee leeg buu ku yeelanayaa waxaa muhiima inaynu fahamno horta ka dhallinyaro ahaan ama ka bulsho ahaanba dowladnimadeenna iyo siday u dhisan tahay iyo sida u shaqayso fahma ka haysanaa ama fahamka aynu ka haysanaa waa faham caynkeeya waxaa laga yaabaa markaa confusion kan badan iyo wareer kan badan ee aynu ka qaadnay ama siyaasaddii ha noqoto maalin walba waxaa laleeyahay shalay dhaantay soo ma kii horaa dhaamay halkiisii buu maray mid kalaa bilaabaya itijaah la'aan iyo iska daba wareeg badan baa jira waxaana lumay bay ila tahay aniga kow horta qeexidii iyo fahamkii aynu ka haysanay nidaamka siyaasiga iyo dowladnimada asalkeedaba kow siyaasadda waan ka nimi dowladnimadeenu waa noocee marka si aan u garan karno sidee looga qayb galaa iyo doorkeebay dadka dhallinyarada ah ay ku leeyihiin igana raalli ahaada haddaanan qeexin dhallinyaro wadaadadu waxyaalo badan baa markay fiqiga marka laga hadlayo waxyaalo badan waxaa la yidhaahdaa waxa loo celiyaa curfiga ama dhaqanka waxa looga yaqaan baa loo daaya xukunkeeda ya sharcigu waa wixii curfiga maaragta marka dhallinyaronimada markaan sheegayo sida curfigeenna aynu u naqaano qeexidaan ku dhaafno waayo dood kale oo hor laba haddii kale imanayso waa daadee iyo halkeeba lagu joojinayaa iyo waxaas marka curfiga dhallinyaro waa sidaynu u naqaano intaasaan u celinaya marka dadkaas iyo kuwa kale guud ahaan ka waaweynba ama ka sii yaryaraadee barbaarta ahi waa inay faham ka haystaan intaynaan ka qaybgalka gelin dowladnimadeenu sida u dhisan tahay adduunka intaasoo nidaam oo dowladeed baa kala jira innaga marka somaliland laga hadlayo waa nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah intaa marka la qeexo wax badan baa ka farcamaya waxa ka farcamaya wax weeye nidaamka dimuqraadiga ah sidee buu u dhisan yahay intaasoo dimuqraadi baa jira adduunka imika jarmalkuna waa dimuqraadi maraykankuna waa dimuqraadi ah midna mid la structure ma isku qaab dhismeed ma ah marka inaga keenu muxuu yahay marka si aynu u saxno khaladka iyo faham darrada iyo iska daba wareegan iyo shalay dhaantidan aynu ku jirno waa inaynu fahmo nidaamka horta siduu u dhisan yahay waayo librarigan haddii aanad garanayn qaabku u dhisan yahay meeshay wax ka khaldan yihiin iyo halkay wax ka saxsan yihiin iyo waxaad rabtay halkaad ugu hagaagaysay iyo ciddaad rabtay inaad wax weydiiso ma garan kartid qof kastoo librariga ka soo baxa wuxuu ku ahaanuun qofkii librariga laakiin markaad buugga qaadanaysana meel baa la tagaa haddaad maamulka la kulmaysana meel baa la tagaa marka waa inaad taqaanid maxay sida u dhisan yahay nidaamku iyo mas-uuliyaduhu siday kale yihiin nidaamkeennaasi marka waa inaan fahamno waa ka qayb qaadashada intaynaanu imanin waa inaan fahamno structureka dowladeed sidee buu yahay somaliland kow waa inaan fahamno inay 3 waaxood dowladnimadu tahay oo waax la yidhaahdo fulinta executive ya waaxna la yidhaahdo waaxda xeerarka iyo shuruucda samaysa waaxna la yidhaahdo waaxda garsoorka
صدح ذا الله مود إني كليهين صدح ذا الله مود مذ وليبنا أي شقة جارة قبته سمر كائن وجباق سنقف برلمان السعودي والشقة دي ستاين الشروع يحرر يصلح حسابتن يكرمر وقسم الدولة الدحية أنا بريت ولا أنتوا كوي ما ده أنا كورن علما كوقد إيه عليه وأنا أذيقنا صعب قطمين si aynaan marka khaladka marka loogu dhicin ama aynaan ugu daawan dadkeena waxa loogu sheekeynayo waa in adigu horta fahamka hoos ayna haysanaa ka dhalinyarahan aan fahamno qof baarlamaan u sharaxan oo wakiil la jooga ceelna ku qodimay iskuulna kuma dhisi kara shaqadiisana maaha hana ka doonin hadduu kuu sheegana waa beenta ku dha waa kow fulintu iyadu shaqadeedu maxay tahay وحكومتي دحين والدولة دي هوسية هوسي من دونان هدونا كواسا مركا وحي أديك إيه سيرفيس أما وح برشا هذا أما وضها هذا أما عيال عضو بهنيت هذا أما قشن لقا قرها هذا أما وحا هالنقضي قبطان مركا وهنا تكلا قرن يسيد ميد والبا الشغة دي سؤال كيتا هدو دي قيب تقرصور كنا شغة قاري يدونا ليه وعدالة دي إيه قرصورياشي إيه نظام كي عدالة دي إيه اندتكو ماركتي si cadaalad maaragtay loo kala xukumo oo xeerarkii la isku qabsaday wixii lagu murmay loo kala baxo marka ka dhalinyaro ahaan inagu hadaynu fahamsanahayna waa inaynu inta badan ee aan fahamsanayn aynu fahamsiino leena hadii nidaamka dawladeed aynu ka shaqeynayno ee aynu ku dhex noolnahay ee aynu ka tirsanay aynaan fahamsanayn waxaynu noqonaynaa dad waxa ku hareeraysan iyo wadciga iyo xeerarka iyo go'aanada ku hareeraysan aan aqoon ba u lahayn deeto maalinba qofkii yimaada sidoo doono ka yeelo okay structure ka markaynu fahamno waa inaynu kala fahamnay isagana mid walba shaqadiisu waxay tahay si aad marka haddaad adu ka qayb galaysid iyo haddaad la xisaabtamaysid iyo haddaad ka hadlaysid aad u garan kartid meel walba wax weeyaan waxaad kala hadlaysid iyo halka laga jiro okay taa markaynu ogaano waa tii dalkeena iyo nidaamku sidoo u samaysnaa qodobka kale ee aan u baahanahay isna la doonaya inaan fahamnaa wax weey wacyi caynkeeyaan u baahanay marka inaan yeelano ogaalka oo qofka dhalinyarada ah ama qofka daayirta ama qofka raba inuu bulshadiisii door ka qaata oo yeelanayo ogaal caynkeey way waa inaan horta ogaano guud ahaan adduunka nidaamyada ka jira sida u qaybsamaan imka inagu qaabeen u samaysanay Ethiopia inagu xigtaa waa mid kale Uganda ka sii shisheeysa qaab kale tahay Djibouti dan waa nidaam kale يعني nidaamna nidaam la mid ma aha soo marka adduunka tiiriyada jira ee marka laga hadlayo dawladnimada iyagana waa inaan faham ka haysano mid dimuqraadiya jira mid socialist jira mid shuuciya jira ilaa hadii kale berito la mid ba ku imanay koornay cayd baan idin siinaya sida Euro kale waa suurtagal soo intuu xisbi iska yimaado berino ku dhaado nidaamka aniga hadda ay doorataan qof walba lacag baan u qoriyaa cayd baan siinaya inaanu siin karin aanu ka shaqeyn karin maxaad ku garanaysaa nidaamkeena dawlad saami u dhisay وما دسنا والنظام ديمقراطي سوما نظام كديمقراطي هذا نوع حكر لنا ينام فهمناه ووعي وكردان نظام كديمقراطي هذا قالها يوجناح سيدو الشقية سيدو كل الدوية نظام كديمقراطي هذا قاله سيجناح سيجيس بريتو تسأل عن هداد استراحة جناح سمايسو وحن أقول كده مركا إن السياسة نقول سيدو كل سيدو كل يكون منفعس nolosha hada maalin laha ah ee aad ka shaqeynaysid bay ay saameynaysa berito haddaad istiraadi dukaan furo oo aad alaab keentay tusaale ahaan oo alaabtii mid ka jeeb weyni uu dukaan kale oo agtaada ah intii in la keeno oo meheradaadi kiciyo maxaa idin kala saareen maxaad xaq ugu leedahay dawladda muxuu qofkani kaaga gardaran yahay maxay tahay inaad kula doodid hadda siyaasi ma noqon xilna ma doonaya fahamkii marka siyaasiga ah iyo wadciga siyaasiga ah ee dalka ka jira inaad ogaatid waxay ka anfacaysaa marka inaad garanaysid noloshaada qofeed iyo taguud ee dalkuba waxa ay ku santahay iyo halka loo marayo taas marka waxa ka imanaya inaan akhrino aan fahamno aragtiyaha dhaqaale kuwa geeska iyo gobolka aynu deganahay kuwa Afrika khuseeya kuwa Somaliland khuseeya
دنت محي كجرتا مستقبل إلا دلك ما تكون ناش زما دلك ما هم وقتها ميل أنت نسكفر في الدنيا نسكر روحي نوم هل موفو سياسية هل دعوة أو سياسية لقيا بقى إن النلش هذا أردن سامين كرت مركا وأنا تقرن كرتيد يا كوجو متلي يجو أنا ذا إلا نقف عن جو أنا دي وحبك الجرنين هدو كوجو متلو وبريت ولا عين للداقة يسوي كريدي مداقين ومد أردن بوداقسي ملايين تقف في ذلك كنا البالغبت مركا وعي الناس إن جو أنا صح أو قادن كرنا وأنا تقرن كرتيد تيري أدون ككتشرة قبل كنا كوا خصية كوا إن كصاد اللي مركا أما سيستمز كدولة نمدا تيدا قالها يسيد أود سنتهاي يا دو حسكتهين يا واحد إن كده حينيان هذا دعوة هالكيد كيس تاجسة ما تسخلق إيران سهدي ميل كانوا وحكد عن يعني وعي مركا وحكاة عونية قان كات قادنيس إنه نقض قان صحة كقرب قادة شر سياسة هبل بحل لودي بي يا قفي دا يرو دا ذلك بحل لودي بما ويكسل باللارنت إن مركا وعيجاج السياسي أهي وقرأ هذا معناه ده حوي قيبات كقادة السياسة دي وضنك إياه نلش إياه مستقبل كذي لأن جوان كقادن دونتد با نقنا يجوان نتيجة ده لا يعتها مدلك وأنفع وين وله أوكي marka fahamkaasi maado doorkeebay tahay dabadhan yaradu in qaadan karto ama sideebay tahay in uga qayb qaadato sida aanu sheegnay ma aha oo kaliya ka qayb qaadashada siyaasaddu faham yaro xiriiriya baa lanaga geliyay hebel baa meel loo magacaabay ilaa goorma la magacaabay qof yar wax qabadna maaha ka qayb qaadashana maaha ka qayb qaadashadu markaynu ka hadlayno nidaamkeena dawliga qof xil loo magacaabay ka ballaaranta دورك قفك موادين كأهي وقادنا يهدى لنيرد هنا حل بالله مجعبه مش أصلا شغك قبطايو كليا ويكبلارنت أما مثل دورتي هالنقطة أما مثل هالنقطة أوكي محاكم إذا مركز نظام كديمقراطي قاعد سيدي بيت مركز لنيرد القيب قاضت كقيب قاضي شذر لنيرد وحكم إذا كو وحنا ندي محي كاب برلمان كوش رح نسألهاني كشكيني لها بيان إذن قضية يسكول بان إذن دسيا هادو كولاي ماده إن التراهديد واد خلدنت waxaa shaqadaada ma mana qaban kartid dadka waxaad u qaban kartid sheeg wad siyaasadda wad ka qayb qaatay because waxaad saxday faham iyo khalad laga qabay nidaamka maaragtay siyaasiga oo laga yaabo inteenan wax barbarteen meelaan joogtay inaan ognay laakiin qofka baadiyaha joogay loo sheegayo aan wax ka ogeyn because qofka maanta uu ku yiri nin baarlamaan ceel ban ku qodaya Brito lana ceel isagu shaqo kuma la soo ma mana qodo ceel wasaaradda biyana kama shaqeeyo shaqadiisu waa isla xisaabtan iyo casho maxaa la yiraahdaa in korjoogteynta xukuumadda iyo xeerar inuu sameeyo iyo waxa aynu ka hadlay hadhow marka muxuu keenaysaa arrintaas ilaa wax la dheelsan kara ma waxay keenaysaa inay culoobaan qofkii muwaadinka ahaa iyo systemka inuu yiraahdo siyaasiyiintu waa beenaalayaan inuu yiraahdo waar waxaan dawladnimada la sheegay iyo codeynta la sheegay naga daayo waa sidoodii uune maxaa keenay marka fahamka khaldan ee marka hore soo bilowday ee inteeni ogeyd na aynu ku daawanayno because waxaanu haysanaa ka qayb qaadashada inta in lagu magacaabo ama meel isu soo sharax which is wrong marka kow waa in fahamka aynu saxno waa ka qayb qaadasho waxa ka qayb qaadasho accountability qofka siyaasiga ku matalaha u qaadanin adduunkan aynu ku noolnahay waxaan idhi it's all about siyaasadda oo nolosheena iyo dhan Soomaa haddaad siyaasadda u aragtid wax halkaa iska yaala oo xun oo in yar xum walaaqanayso adiguna aad dibadda ka joogtid albaabka kugu soo garaacaysa sooner or later ma daahayso marka hada fahamkaadu haysta uu yahay waxaas waa wax xun oo ay walaaqanayaan go'aamada noloshaada iyo adiga waa go'aan uu qofkaas awoodda siyaasiga ah qaatay ba dukaankaaga dad bakhaar haysato kugu imanaya dad haddaad isku leedahay kugu soo galay meel walba kugu imanaya saameyn kugu yeelanaya marka waa inaynu khaladka meesha ka saarna in loo arko waxani wax external wax dibadda inaga yaalo maaragtay wasakho ay tahay inaan loo dhawa waa inaan ka shaqeyno saan uga shaqeynana ay noqoto kow isla xisaabtan waa inuu yimaado ka wax kharibaya haddaad eegtid ood ka aamusid oran weydid waxaad sheegaysaa waa khalad ama wixii uu shalay ku sheegay waxaan ahayn uu ka hadlay aad qaban weydid
وضيعي سنا وقيب قادنا مركا accountability إسلا حسابتن كي إذا نحوشينوي إسلا حسابتن كي قف كي ما بقاري كرتي سوما هذا دونتو ميديا ترى سوشيال ميديا استعمالنا أود السوشيال ميديا هذا يلسننا وحا سمين كرتا مركا قفكي إن أتكلم حسابتن من كرتي ثرو ميديا شالينا وحنات شاكتي ما أنت وحنات شاكتي statistics أنت صوح بالله سمين نمبر كهذا حقتي ميل والبيت على وين بحسنت إن الناس يلسن مركا دورك أن كقاعدن كرنا محي إسلا حسابتن كينا نحوشينه because مركا إسلا حسابتن كشقين إذا قفل هذا وحاها كهالين وحاها سمين هاو قاعدنا نت سياسة كقيب قاعدنين وكقيب قاعدة شذا قيبها وجمهم سن واللي النظام كديمقراطي كان كهالين accountability إسلا حسابتن توقف كاركن كويما ويا فيسبوك التك يوتيوب كاك سوفريس وكو خصبنانيا بانتي وشاقي ومدى أصوب بندق because بريتو لما حو سمينيا وحي وحانا ينبودت كله هريمان دونا وكور وري دونا وحلو ويدينيو إننا واحد بودا إن لقصو أوروريو كلي كقيب قادشة قفكو إنو عداي سما كو عداين تواكا قيب قادشة مهمة وي قوان كاك مسيري قاها عدة متلي ساعة سينيسي لبا doorashooyinka inay dhalinyarada qaarkood ka shaqeeyaan ama ardayda jaamacadaha kale labadaasi waa laba muhiima laakiin isla xisaabtankaas inaynu xoojino afkaar inaad ka dhibatid siyaasadda waddanka ka socota iyo dhacdooyinka dhacaya ha dhayalsanina because that's iyaduna waa maxay waa ka qayb qaadasho aad muhiim u ah fikrad inaad ka lahaatid waxa dalka ka dhacaya iyo sida u dhacayaan waa noloshaadii wixii saameynaya fikrad ka leedahay inaad soo bandhigtid aad u gudbisid inta aad ogto waxa laga yaabaa dad badan ma oga aad baraarujinta samaysid وأرين يدنا وين وماشي كتشرته إنها تاجرتد أفكار السياسة جات سلادة هاي ضلك إيه ضدك معناه ولاده واقع هذا شو وين وتسمين كرتد قفك سلادة قفك فكر كيس هو صح إنك واحد كوسا أورتيون حلوان دينا وضي الباص صح ولا هي ولكن كلنا وضي الباص صح ولا يجي عندنا مثلية you have no say أدو أي ديبك ما يستدبع محوي مركا أديكو كقيب قاعدة شدادهم ما أنت قفل مقع إمتى قفل مقعابي كرا وأنا نفهم كقيب قاعدة شدادهم مقعابينا ماشي كسرنا قف كميش تجي مديدة داب كذا قبنايا إيه أتفكر دي سكوقنا عضي تاجر مش شو دونها تشوف هذا وح أبور ما يمرك محي وعي كرية يضد اسمه مبدأ هو وح الربان ونكسين هاي وكان كلا كحوك بتاعينه سما اسمه وكقيب قاعدة شمرك إن أفكارته قف ميل كهالله أو فكر ونكسن كهالله إن تاجرتي تبوريسي تلاكو بوري كتاجر تلمان دقالة كتاجر قيب وين بتقاعدة مركا إن تحديد محي وعي سياسي جايب بالشدة أذيونا أتقيب قاعدة social issues كنا مركا إن ناندا يلسنين والنظام كسياسي كان كهالله نابو دمانتي وحكى هالله social issues مركا وعي جاني وكرده bulshada waxa la boqolkiiba 70 wax ka badan baa dhalinyaro ah wacyigeena markuu saa u kordho aynu wax isweydiin iyo dood iyo isla xisaabtan yimaado waxay saameynaysaa cidda la dooran doono iyo cidda iman doonto iyo cidda xilalka inoo qaban doonta for the longer run degdeg ma aha wax walba inaan ka fikirno laakiin markay dooda iyo wax isweydiinta iyo isla xisaabtankaasi socdo saameyn waxay ku yeelan doontaa cidda in hor imanayso waa qof kasta oo marka ummadda aan la doodi karin afkaar keeni karin wax macna la ka shaqeyn kareen markasta oo si daciif ah laakiin markuu arko in meeshu iska tahay ana way kan cid walba iman doonta laakiin isla xisaabtankaas muxuu keenayaa dad macna li marka dambaysa inay yimaadaan waqti haday doonto ha qaadato markasta oo dad macna li ay yimaadaanna waxay keenaysaa markaas inay kuwa kale oo badan oo meelaha imka ku dhuumanayo siyaasaddu way khariban tahay iyo maadiida iyo foolxumada badan ee muuqata ka baqanay inay bataan markasta oo dadkaasi ay nidaamkeena dawliga ah ku bataan waxa macna yeelan doona hay'adaha dawliga ah ee noo adeegaya serviceska ina siinaya markasta oo ay taasi ballaarato institutionsku ay quality iyo maaragtay waxtar badan yeeshaana nidaamkeena dawladeed iyo good governance-keena iyo dawladnimada iyo qarannimada ayaa wax weyn tari doona marka inahaasan kusoo koobi doona wixii kale waynu ka sheekaysanayna aad baa u mahadsantahay